kulanti wanaagsan asxaabay meel kastoo naga daawanaysaan kusoo dhawaada barnaamijkeena habeennimo haddaba waa habeennimo khamiisa jimca ay soo galayso taariikhduna ay ku beegan tahay 21 bisha May maxaa soo kordhay tan iyo intaynu kala maqnayn wararkii soo dhacay ayaynu barnaamijka ku faahfaahin doonaa ugu horreyn waxaynu ku bilaabaynaa sidaynu sugaynayba ninka Trump la leeyahay inuu u jawaabi doono aayatullaahiga Iiraan haddaba waa la socoteen barnaamijkaygii labaad dadka daawaday way soo daawadeen waxaynu ka hadlaynay aayatullaahiga Iiraan oo yiri hadal weyn soo tuuray marnaba uraniumkeena dibadda ba u qaadayno meesha uu hadda joogana kama yaraynayno annaga iskale waxaynu haysanaynaa sidaas hadday Maraykan nabad noogu keenayaan aan ku heshin Maraykanno maxay ku doodayeen uraniumka annaga noo dhiib ama meel kale aan isla ognahay geey waddankaaga qaad waa ka shakisanahay sababtoo ah hub nuclear in laga sameeyo ayuu gaari rabaa qodobka Maraykanku ay ku dagaalamayeen wada hadalka dhan muhiimadiisu ay waa kaas aayatullaahi marka soo afjaray wuxuu yiri waxaan dhiibayna mal waa haysanaynaa waxaan marka waa barnaamijkii labaadaan aad uga hadlay dadka daawaday way ogyihiin marka barnaamijkeenan saddexaad maanta aan idiin soo gudbinayo marka wataan idiin sheegay inay Trump waa ka soo jawaabi doonaa Trump wax kasta hore kaga soo jawaaba haddaba markaan idin tuso telefishinka Al Jazeera ayaa qoray wuxuu leeyahay Trump wuxuu diiday inay haysato Iiraan uraniumka halka Tehran iyaduna ay ka go'an tahay in ay haysato uraniumkeeda haddaba khudbad uu ka jeediyay aqalka cad Trump maanta oo khamiisa waxa uu sheegay waxaanu heli doonaa yiri uraniumka Iiraan ee aadka loo kordhiyay oo sare loogu qaaday waxayna haddii ay diidaanna waxaanu samayn doonaa waanu burburin doonaa isagoo raaciyay in Washington aysan u ogolaan doonin Iiraan inay haysato kaydka ugu badan uranium fara badan waxaana uu sheegay arrintaa inay diidan yihiin Maraykanka iyo Tel Aviv labadaba wuxuu sii waday in Washington ay hubin doonto in Iiraan aysan helin hub nuclear isagoo sheegay in waddankiisu aanu marnaba raalli ka noqon doonin haddaba hay-adda tamarta adduunka ee u qaabilsan dhinaca nuclearka ayaa warbixin ay soo saartay sheegtay Iiraan inay haysato in ka badan 400 oo kilogram oo uranium ah taasoo markaa ka dhigan in 60% ay markaa ay gaarsiisan tahay in ay uga dhiman tahay wax yar heerkii hubka nuclearka laga samayn lahaa oo bacriminta uraniumkuna ay sare u qaaday Iiraan way marka waa arkaysaa sheeka marka waa cajiib way ninkii Trump ama yeelayno waa qaadanaynaa ama waa burburinaynaa aayatullaahiga hal mar u hadla bis aayatullaahiga daa wuxuu yiri waxaynu haysanaynaa ninkii burburina iyo ninkii qaadana asaga u talahay maad annaga waxaynu haysanaynaa meel aan u dhiibayno mal cid aan u dhiibayno mal sheekadan marka waa sheeko soo jiitanta xataa mar Ruushka isku dayay inuu dhex galo si xiisada loo qaboojiyo oo Ruushka wuxuu yiri uraniumka annaga qaadayna oo geynayna dalkeena ku haynayna maadaama Iiraan aan saaxiib lanahay Maraykanka asaguna diiday Iiraan laftirkeeda waa diiday waxay tiri meel ma la geenay maxaa loo geenay annaga haysanayno waxaan marka sheekadaas marka waxa leeyahay waxay mugdisi gelinaysaa xaaladda gobolka inkastoo ninka wasiirka arrimaha dibadda u ah Maraykanka uu yiri Trump wuxuu rabaa nabad in arrintan xal loo helo wadiiqo kasta ayuu u marayaa marka dee xalkii marka muxuu ku imaanaa qodobkii la isku hayaba nin walba qaab uu isticmaala kana ma dhiibaa kana soo dhiibaa la taagay marka sidee marka wax ku soconayaan hawshaas marka waa ka gudbaynaa halkaas ay maraysaa dhanka kale Saudi Arabia ayaa la sheegay in culays weyn uu kaga yimid isticmaalka marinbiyoodka Hormuz oo dhibaato fara badan dhulkan la yiraahdo Khaliijul Arab culaysa ka soo koray marka Hormuz way ka wareegayaan waxay billions dollar ugu talagaleen lacag gaaraysa trillion waxay ugu talagalayaan hadda si degdega mashaariic in tareeno la saaro shidaalka waxa iyo howlahaas oo dhan dhanka Badul Ahmar
badda cas dhankeeda Jidda iyo in halkaa laga dhoofiyo oo shidaalka markii la dhoofiyo uu ka baxo halkaas Masar maro meeshii uu maartay ka gudbo marinbiyoodkii masaarida saas Yurub u aado marka halkaa in marka waa in degdeg marka lacag fara badan marka sanduuqa maaliyadda Sacuudiga ayaa lagu amray inuu hawsha qabto isaguna durbaba wuxuu la shiray qolooyinka tareenada iyo waxa dhan ay hawshaas marka lagu jira aniga tuso Al Jazeera waxay leedahay Sacuudiga wuxuu degdeg u sameeyay wixii uu ku bedeli lahaa Hormuz iyadoo marka la sameeyo dhinacyo kala duwan oo logistiga oo marka in xamuul cusub qaab cusub oo loo raro shidaalka iyo hawlahaas in marka la sameeyo marka waxa la sheegayaa in ilaa badda cas xaggeeda ay xagga xooga saari doonaan Sacuudiga oo halka ka shaqeyn doonaan way qodobka isaguna halkaas ka gudbayna haddaba war ay soo saareen Jarmalka goordhaweyto waxay leeyihiin laba qof ayaan qabanay labada qof mid wuxuu u dhashay Denmark midna Afghanistan haye waxay rabeen inay dilaan dad mas'uuliyiin Jarmala iyo kuwa Yahuuda inay Jarmalka gudihiisa ku dilaan dadkan waxay u shaqeynayeen Iiraan kala maahana waliba waxay si toos uga amar qaadanayeen ciidamada ilaalada kacaanka Iiraan marka qorshe Iiraan ay u maleegayso wadamada Yurub oo gudahooda ay falal kaga sameynayso ay leeyihiin sheekadaas marka sheeko waali way soo baxday haddaba wargeyska leeyahay Sharqul Awsad wuxuu leeyahay Berlin waxay sameynaysaa iyadoo ku eedeynaysa laba qof inay dili rabeen siyaasiyiin una adeegayeen Tehran marka warbixintu way sii socotay waxa la sheegayaa in markaasi dacwad oogayaasha Jarmalka ay eedeymo ku soo oogeen laba muwaadin oo u kala dhashay Denmark midna uu yahay Afghanistan kuwaasoo lagu tuhmayo inay markaa ka shaqeynayeen oo ay qorsheynayeen dilka madax caan ah oo ka tirsan ururada Yahuuda ee ku nool waddanka Jarmalka iyagoo u shaqeynayay Iiraan haddaba labadan qof ayaa la sheegay in magacyadooda hore kaliya la tilmaamay mid ka hore waxa la sheegaa Cali in la yiraahdo mid ka dambana in la yiraahdo Tawaab haddaba wargeyska la yiraahdo Der Spiegel ee ka soo baxa dalka Jarmalka ayaa wuxuu sheegay in ay eedeyntu ku jirto inay dadkani xiriir la lahaayeen oo ay la shaqeynayeen ciidamada ilaalada kacaanka Iiraan si ay dilal gaadma ugu sameeyaan siyaasiyiin Jarmala iyo kuwa Yahuuda marka sheekada iyaduna wararka cusub ay ka bitaay oo dhibaka Iiraaniyada lagu eedeynayo in Yurub gudaheeda ay falal kale ka wadaan wararka kale ee soo kordhay intaynu kala maqneen waxa kamid ah magaalada Gaza weeraro culus ayaa maanta lagu qaaday Israa'iil mar walba joogta iskaga haysa adduunkii wuxuu ku mashquulay Iiraan iyo Mareykan iyo waxa kan iyada hawlahan hoose dadkii reer Gaza maalin walba joogta ku haysa haddaba marka war goordhow laga qoray xaaladda Gaza ayaan idin la wadaagaynaa magaalada Qudus wargeyska Qudus wuxuu leeyahay ciidamada Israa'iil ee gumaystaha ayaa waxay sameeyeen inay markaa weeraro ku qaadeen marinka Gaza hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan dhinaca qaxootiga Falastiiniyiinta ee la yiraahdo UNRWA ayaa ka digaysa in Gaza ay ku soo fool leeyihiin cudurro dhinaca maqaarka ku dhaca dhibaatooyinka rasaasta iyo wixii lagu riday ma ay ka dhashay ayaa la leeyahay haddaba maanta oo Khamiis warbixinadu waxay sheegayaan in markaa 3 qof oo Falastiiniyiin ay shahiideen oo ay ku jiraan haweeney iyo cunug iyadoo qaar kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii Israa'iil ay toos u duqaysay goobo ay dad rayda joogeen inkastoo duqaymahan Israa'iil ay joogto yihiin haddana 10 Oktoobar sanadkii la soo dhaafay 2025 ayaa heshiis xabad joojina la saxiixay oo Falastiin Gaza arimeeda ku saabsan ayaa caawa soo saartay war ku saabsan inay weeraro culus ku qaadeen caawa habeenimadan goobo ay ku sugnaayeen ciidamada Israa'iil iyagoo garaacis u geystay oo duqeeyay waxaana la sheegay goobahaas inay ku yaalaan koonfurta Lubnaan Xisbullah waxay sheegeen inay xaqiijiyeen in halka dhimasho iyo dhaawac ay ka geysteen oo ciidamada Israa'iil goobihii ay ku sugnaayeen ay weerarka ku qaadeen
haddaba weerarkan ayaa kusoo beegmaya xilli wasaaradda maaliyadda ee maraykanka ay cunaqabatayno saartay mas-uuliyiin reer lubnaana oo lala xiriirinayo inay xisbullah iyagu markaa ka tirsan yihiin oo markaa cunaqabatayno ayaa la saaray ayaa la leeyahay. wararkaas ayaa ugu dambeeyey barnaamijkeennii caawa. fadlan haddaadan daawan barnaamijyadeedii koowaad iyo kii labaad maanta aan soo gudbinay oo khamiisa, iyaguna mawduucyo iyo warar aad muhiim u ah ayaa ku jira oo aad kala socon kartaa akhbaaraadkii ku dhaafay. inta aan mar kale kulmayno meel kastoo aad joogtaan